بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga Soomaaliyeed dhan aad baan idin salaamaya. waxa waaye walaalkii maslax mideeye. waxaa jiray arrimo badan oo media dhex socda oo hadda shalay iyo maanta aad uga dhex guuxaya balse aan xaqiiqadeeda la ogeyn oo kalba si loo dhigayo. waxa waaye horta way jirtaa xaqiiqada ah in shalayto shil u dhacay. shilkaasi qadar bay ahayd. waxa waaye horta dadku waxay isku haystaan ay dhahayaan dad badan oo waxa jira macnaheedu dhiirin gaariga waxa saaraa sharmo iyo maslax iyo asxaab kale oo maslax dhaawac soo gaaray. qaar waxay dhahayaan sharmo dhaawac la soo gaaray, qaarna waxay adigu kolba si baa loo sheegaya arrinkaas. waxa waaye laakiin arrinka haddii xaqiiqada aan idin sheego waxa waaye aniga maslax mideeye ahaan horta gaariga ma saarnayn. anigu gaariga ma saarnayn markii ay baxayeen hawlo kale ku jiray oo xalinayay balse nasiib ahaan walaalkay sharma iyo asxaabtood garanaysiinta kulli marka dadka asxaab yihiin way israacaan way iska magaalada iska soo dalxiis tagaan. gaariga lix ku saarnaayeen 4 wiil iyo 2 gabdhood. qadar ilaahayna waa dhacay oo shilkaasna dee waxa weeye mid loo kasinay ma ahayn oo dee ilaahay amarkiisa ayay ku timid. waxa waaye qofka bini'aadankana hadduu waqtigiisa dhammaado ama uu ilaahay damco inuu wax gaarsiiyo cid ka hor istaagi karta habeeraatay ma jirto. waxa waaye halka iyada ah waxa waaye dhacday in uu gaariga gudoomay. gabadha gaariga ku geeriyootay Allahu naxariisto ilaahay ehelkeygana uga dhigo samriye iimaan siiyo naxariistii jannada ka waraabiyo. gabadha waxa halis ku gashay gaarigu markuu gadoomayay dhinaca daaqada gabadhu markuu gaariga gadoomayay markii gaarigu sii dhacay ayaa waxa dhacday in daaqadii furantay. daaqadii markay furantay ay gabadha dhinaca daaqadii ka dhacday laamigiina ayay ku dhacday. saasiyadu wax u soo gaareen ay ku geeriyootay. shantii kale ay saarneed gaariga may ka dhex bixin gaarigii dadkii ku jiray waxa may gaarin sharmaaka Cabdi Naasir waxa waaye isagana wax ma soo gaarin oo uu noo qaba alxamdulillah. wax garaad soo gaadhay mid macalladka gaariga la saarnaa way wada caafimaad qabaan alxamdulillah. waaye gabadha kaliyaatay ayaa wax ku noqotay oo naga geeriyootay. waxaana leeyahay qadar way dhacdaa Allah u naxariisto ehelkeygana samee iimaan ka siiyo. waxa waaye arrinka kale leeyahay saar idinku sheegay anigu gaariga ma saarnayn waxba ima soo gaarin alxamdulillah nacad qaba ana caafimaad qaba. laakiin xogaha inkastoo ay soo gaartay shock iyo naxdin oo hadda ilaa hadda igu jira. waxa waaye sidoo kale alxamdulillah. waaye arrinka kale leeyahay sharma xabsiga ku jiraan waxa waaye dee qadar baa dhacay oo qofka bini'aadanka ama fanaan ahaado ama madaxweynaha ahaado ama wasiir ahaado waxa waaye hadduu shil dhaco qofka bini'aadanka waa la xisaabtamaya. arrinkaas sharmana maxay ugu xayran yahay wax kalena maaha. dee gabadhana reer ka soo jeedaayo dad baa dhalay isla dad baa dhalay reer ka soo jeeda. waxaa arrinkiina si wanaagsan loogu xaliyay waa la safkartay. gabadhiina alxamdulillah waa la aasay. gabadhina soo aasnay labadii reerona way wada hadleen waana safkarteen in la heshiiyey oo markii gabadha la bixiyo yaa isku afkartay. wax dhibaato meesha ka jirana ma jiraan. Soomaaliya waxaan idin leeyahay qofka bini'aadanka markay dib ku soo gaadho sharaf iyo sumcad waxaynu ku lahayn qofka walaalkaya ama cadowga la noqdo marka ay dhibaato ku dhacdo in loo naxariisto macnaheedu loo duceeyo iyaan nagu sharaf u lahayn oo lagu yaqaanay dad Soomaaliyeed in la boonbooniyo oo been iyo politic in lagu raadiyo fuse laga raadiyo oo lacag lagu raadiyo qof inaga baxay oo walaal qaali inoo ah. waxa weeye arrin aad u foolxun weeye. waxaan Soomaalina u sheegayaa walaalahay wixii dhacay arrinka yaa la sii boonboonin oo yaa wax lagu sii tirtirin. qof baa inaga baxay inaynu u duceyno oo quraan marino ayaa laynooga baahan yahay. maaha in aanu anagu ka faa'iideysano qofka dhibaatada soo gaadhay oon macnaheedu u adeegsano inaan ku ataagno ama sumcada ka gudbino. waxa waaye midda kale horta sharmaake aniga dad saaxiibo kaliya ma wada ogtiin waa qof aniga walaal ah iyo walaal ii noqday oo walaal qaali ah wada nahay. Soomaaliya shalay sharmaake markaan Djibouti wada aadanay in Djibouti u wadaayay wax macnaheedu qabiil ama qabiilad oo dhex socota ma ahayn wax horumar noo soo kordhay
يا هاي إنه كذا فرح سنين إن دلكي ولا لهين يجودي أنا يعني دلكي نيلا بعد أكسوري إنه سمعتي يقرح دي يا صوبان دينه ما دام أساس أنا يا شربات أني يلا وحين شيء سو قارني حدي مرة أنتم تذكر عليهم ده مثلا يقرحني أن ده شعب إنه يسوي شيء إنه حق على بدن إنه كل حرين أن ميرا بسم على الله إن شاء الله إنه أنا قرح سنة أنا دلني إذا كنا بعد سوى عبيدنا إن راحيد وحنو شيء سو قارني مركز سجل سوى دمانو إن أنا مركز أن بدل سوى أنه أنا دلكي كسورينا أنا قرح سنة وحكي لي ما هي كل دي ذاتك أقل صاحب كوا فهميا أريكان الناس كل لودي كوفر قلب باينا تنوي نوقف سنين إنه بتبلان إنه خاتم استيد معناه إنه تيجي إنه سومالي لان أنت بقى نروح هيدون إن ذاتك أو وقت لقاعدنا حمان ترى يو وناجي سيدا أدو labadaas aad ka dhigato wax walba way ku noqonayaan haddaad wax wanaag ka dhigato wanaag bay ku noqonayaan haddii aad xumaan ka dhigato naga adiga xumaan bay ku noqonayaan marka insha Allah waxaan aad baan idin salaamayaa arigu saas ku jira saas u jira soo duceeya insha Allah rabbana dhamaanayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh